marinka Gaza ayaa soo jiitay indhaha caalamka kadib weerarkii 7 bishan Oktoobar ay qaadeen ururka xaquudirirka iska caabinta ee gudaha Israa'iil kaasoo ay kaga jawaabtay dowladda Israa'iil duqeymo bahadnimo ah oo ay ku dhinteen kumanaan qof burbur xooggan ka geystay mid ka mid ah magaalooyinka ugu saboolsan uguna dadka badan caalamka su'aalaha ku saabsan nooca marinka ayaa kordhayay maalmihii la soo dhaafay iyadoo maamulka Israa'iil ay ku dhawaaqeen isniintii go'doominta guud ee Gaza kadib markii wasiirka difaaca Yuhuuddu uu sheegay in korontada, cuntada iyo shidaalka loo diidi doono in ka badan 2 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ku nool gudaha magaalada Gaza. Haddaba si aan u fahamno wax badan oo ku saabsan nuxurka mawduucan, aynu isweydiinno waa tuma Gaza. Waxa kale oo aynu ku eegi doonaa barnaamijkan halka ay juqraafi ahaan ku taal iyo sababta loogu bixiyo magacyo badan oo ay ka mid yihiin magaaladii go'doonsanayd, marinka Gaza iyo xabsigii korka furnaa. Haddaba Gaza juqraafi ahaan waa aag yar oo ka mid ahaan jiray dhulkii Falastiintii taariikhiga ahayd sidoo kalena ka mid ahaan jiray boqortooyadii Cismaaniyiinta ka hor inta uusan qabsanin gumaystihii Ingiriisku oo ka talinayay muddadii u dhaxaysay 1918 ilaa 1948. haatanna waa mid ka mid ah labada qaybood ee ay ka kooban tahay Falastiin oo lagu daray daanta galbeed ee la haysto. marinka Gaza waxa uu ku yaal jihada koonfur galbeed ee waddanka Falastiin waxaase u dhaxeeya qaybo ka mid ah Israa'iil oo jihada bari iyo dhanka waqooyiba ka xigta. dhanka koonfur galbeedna waxa ay jaar la tahay waddanka Masar halka jihada koonfureed ay ka xigto badda Mediterranean-ku. Gaza waxa ku nool dad kor u dhaafaya 2 milyan 250 kun oo qof oo kala bar ka mid yihiin carruur sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta ee UNICEF. Gaza waa magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Falastiin marka laga yimaado magaalada caasimadda ah ee Qudus. badka magaaladani ay ku fadhido ayaa ah 360 kiiloomitir oo laba jibaaran waana sababta marinkan loogu tiriyo mid ka mid ah meelaha ugu cidhiidhiga badan adduunka iyadoo heerka cidhiidhigu uu gaarayo marka loo eego tirooyinkii u dambeeyey in 26 kun oo qoys ay ku nool yihiin halkii kiiloomitir ee laba jibaaran. marinka Gaza waxa saaran go'doomin adag oo Israa'iil ku soo rogtay tan iyo markii ay dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ah la wareegeen sanadkii 2007. meelaha cunaqabataynta laga saarayna waxaa ka mid ah gelitaanka shidaalka, qalabka dhismaha iyo waxyaabo badan oo aasaasi ah. sidoo kale waxaa mamnuuc ka ah reer Gaza inay ka kalluumaystaan xeebahooda. marinka Gaza waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay Israa'iil marka ay noqoto helidda biyo, koronto iyo qaybo ka mid ah khudradda iyo cuntada qasacadaysan. waana meelaha ugu badan ee Israa'iil ku gumaysato ama ku handada reer Gaza oo dunida inteeda kale ka go'an. intan uu dagaalku socdayna dowladda Israa'iil waxa ay ka jartay reer Gaza korontada, biyaha. waxa kale oo ay is hortaagtay in gargaar bini'aadanimo oo laga soo gelin lahaa dhanka waddanka Masar oo ay diyaar ku yihiin caawimo iyo gargaar kala duwan kuwaas oo ka yimid waddamada Islaamka ah gaar ahaan waddanka Masar oo isagu jaar la ah. inkasta oo haatan la sii daayay gaadiidka gurmadka sida. haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso cidda xukunta Gaza maadaama ay dhulka Falastiin intiisa kale ka go'an tahay. tan iyo markii ururka Xamaas ay la wareegeen marinka Gaza bishii Juun 2007 waxa magaaladan ka arriminayay ururka dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee Xamaas oo inta badan loogu yeedho dowladda Xamaas ee Gaza. gabagabadii Gaza waxa soo gaadhay burbur taariikhdu xusi doonto ilaa iyo haatan waxay dhimashada dadka rayidka ahi maraysaa in ka badan 6,000 oo shahiid oo 2,000 oo ka mid ahi yihiin carruur halka iyana in ka badan 1,500 oo dumar ahi ku naf waayeen.